محمد آدم سلام الله runtii waxaan rabnaa inaan barnaamijkeena ku furano aayadaha quraanka kariimka ah oo uu noo akhrin doono mawlid soo dhawow السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرتي شرفت قيمها إقامة قيالة كسو غيب بس حفلتان قروح البضان له وحان إذن له مرة بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت وحان وجوغنا حفلتان أو قروح البضان له نسوقون نمت سيدي أنو تاغير لهين مدحويناها مشرحة ومدحويناها حل دار كسوية عبد الله محمد آذن سلام الله waxaan leenahay cabdullaahi madaxweyne waa tahay maanta wixii ka bilowda intaan ummadda waxay kugu taageersan tahay inaad madaxweyne Soomaaliya aad hogaamiso cabdullaahi ma aha nin laga sheekeeyo oo yani dadka la bara ma aha waa cabdullaahi nin professor ah waa nin jaamacaddii la foolay Soomaaliya macallinka ahaa inta badan Soomaalida dibadda ku dhooftay maanta waa ninkii macallinka u ahaa marka waxaan leeyahay cabdullaahi mar labaad intaan waa bulshadii Nairobi ku dhaqnayd
maadaama arrintu xafladdu ay anaga naftkayna ay xoogaa waqtigiisa nagu noqotay oo intaan in ka badan aan ku imaan lahayn maanta waxaan leenahay wixii dulduleelaha anoola boogdhayo marka waxaan is leenahay odayaashaynii inta badnayd maanta nin aroos aaday nin meel kale aaday noqotay laakiin intii joogto waa intii muhiimka ahaa waxaana leenahay iyagana hadalku waa iga dambayn doona hadduu ilaahay raalli ka noqdo marka waxaan ku leeyahay cabdullaahi intaan walaalaha waxay kugu taageersan yihiin inaad noqotid hogaamiyaha Soomaaliya waxaana leenahay maanta wixii ka dambeeya madaxweynaha Soomaaliya aan ku leenahay soo dhawow oo ku taageersanahay waxaana wixii hiliyaho aan kugu qarab taaganahay waxaan leeyahay cabdullaahi waa madaxweyne ninkaan nin yani maanta ka wanaagsan oo aan dooran lahayn ma laha bulshada Soomaaliya joogtana kolley media markay ka arkaan waxaan u maleeyaa inay leeyihiin ninkan waa ninkii maanta Soomaaliya hogaamin lahaa oo dhibaatada ka saari lahaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مركا أهرسا وحانو مهدعين الله سبحانه وتعالى ماشي سوى كان كيني مركا اللباننا وحانو مهدعين الشعب كان قروحنا بدن الرقي يضمر بلاء قبلها أن قروحنا بدن علماء دينا أو بدقمنا دينا كل ديران مايو دكتور عبد الله محمد آدم سلام الله وأننا صاحبنا هاي مدد ديرنا دعوة اسكندنافيا كسو ودا شقين جرني مدة بدنا جالية يوكينا كودا شقين جرني عدي دونيسا ديتورك إنا وحضرته وأنا داعنا الله تمعد مركو هوري مركو وحان ليهي دادوينها ميشا دوبانو وحان إذن كعصينا هالارين عبد الله وحان ليه واكي بدباين لها شعبك الصوماليات واكي إسوكينا الجالية الصومالية يوكي كلا تكسنا وانيكو إسوكينا ويه وانيكو وحوين كقبتها مال أتاقنا marka waxaan leenahay dictatorka daacad weeye cidii doonaysa inay wax ku darsato dictatorka waxa la garab istaago daacadna ha loo ahaado waxaan leenahay dadka duurka ku jiro oo dictatorku ka dhashayo duurka ka soo baxa dunyadana hura dirna wadi garab taagantahay iyo dadkiisoo dhan salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bismillaahir rahmaanir rahiim salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waa idin salaamay Soomaali weyn meel walba dunida dacaladeed ka joogtaan musharixiinta mudanayaasha marwooyinka culimada waxaan leeyahay dhamaantiin waa salaamantihiin waxaan soo dhaweynayaa madaxweynahayga Cabdullaahi Maxamed Aadan Salaamullah insha Allah waxaan rajaynayaa tripkan Soomaaliya inaan oo codeysaan nin walba waa mar ninkii noo soo galo waa ninkii maxaa jirkii noo soo galo waa madaxweynaheena wiilasheena way noo siman yihiin Soomaaliyeed waxaan ku faraxsanahay maadaama uu taagan yahay walaalkay Cabdullaahi Maxamed Aadan Salaamullah waana taageerayaa waxaa kaloo taageerayaa fanaanka weyn haddana maxaa la jiray xildhibaankayga Farxaan Xidig dhammaan inta kale gabadha walaashay inkastoo magaceeda aan aqoon ayadana waan salaamayaa dhammaantiin Soomaali meel walba waa joogtiin waxaan idin leeyahay Soomaali ha midowdo ha israacdo kii noo soo galo waa Kenya waxaan leeyahay hadda tripkan anaga noola coday in badan waa idin codeen Soomaali xamaday Soomaaliya mudane Cabdullaahi Professor Cabdullaahi Maxamed Aadan Salaamullah guddiga qabanqaabada xildhibaanada odayaasha dhaqanka ganacsatada culimada diinta siyaasiyiinta waxgaradka iyo dhammaan inta halkaan ka soo qayb gashay waxaan idin soo jeedinayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh intaa kadib waxaan rabaa marka ugu horeysa inaan madaxweynaha mahad gaar u celiyo waxaan mahad gaar u celinaya kuna ammaanayaa soo jeedintiisa musharaxnimo oo ah arrin go'aan geesinimo leh oo loo baahan inay ku daydaan dhalinyarada soo kacaysa oo uu qaatay inuu ka qayb galo halganka lagu samaka bixinayo ummadda Soomaaliyeed Soomaaliya waa la socotiin waxay soo martay marxalad adag maanta samaka bixin u baahan tahay marka waxaan aaminsanahay Professor Cabdullaahi inuu yahay ninkii samaka bixin lahaa ciriiriga iyo xanuunka iyo dhibka ay ku jirto iyo daalka ay la dhaala dhacayso ninkii ka saar lahaa inuu yahay ayaan aaminsanahay marka maanta waa maalin taariikhi ah oo walaalaheen reer Kenya ay ku soo dhaweynayaan shucuurtooda iyo dareenkooda muxuu ahaa inuu ku taageeraan musharaxnimada professorka marka waxaan rabaa inaan wax ka bixiyo waa kuma Professor Cabdullaahi
maadaama uu saaxiibka yahay dadkii bahda waxbarashada aan ka mid ahayn professor cabdullaahi waa aqoonyahan soomaaliyeed way araga rugcadaaya dalka u soo shaqeeyey ummadda u soo adeegay waa nin daacada waa geesi karti badan aragti fog leh oo aan aragti dhow lahayn iyo istiraatiijiyad ummaddaan maanta lagu hoggaamin karana waa nin kasban kara oo soo jeedin kara marka laguna aamini karo dalka dadka iyo diinta aqoonta ani aan u leeyahay walaalkay wuxuuna khibrad gaar u leeyahay bahda waxbarashada iyo barbaarinta nin macallin haddaad aragto dal sidiisa wax hoggaamin kara nin macallin maxaa yeelay ilmaha habeenku dhasho barbaarin u baahan yahay marka ninka wax barbaariyey dalna waa hoggaamin karaa waxaa jira xikmad dhahayso hal ilmo oo la barbaariyaa waxay ka dhib badan tahay dal in la xukumo hal ilmo oo wax la baro waxay ka dhib badan tahay in nation la xukumo marka sidaas daraaddeed professor cabdullahi maadaama uu khibraddaa leeyahay waa aragnimada oo barayaashii jaamacadda ka mid ahaa isla markaasna mas-uuliyad waaweyn uu ka soo qabtay jaamacadda uu ahaa agaasimihii maamulka lacagta jaamacadda ummadda soomaaliyeed wuxuu ku soo gutay si daacadnimo ah nadiif ah soomaalinimo ah oo lagu yaqaan intii markaa la shaqaynayso aan aniga ugu horreyn marka waa nin xooleen aan ku aamini karno nafteenna ku aamini karno mustaqbalkeenna ku aamini karno marka way ka weyn tahay marka wax reer sheegan kara ma ah dowladnimadu waa badbaado waa wax lagu samata bixinaya nafta iyo maalka iyo xoolaha muwaadinka Soomaaliyeed waxbarashada caafimaadka diinta ayaa lagu samata bixinaa marka waxaan aaminsanahay walaalkii Cabdullaahi marka nin aan lixdaas qof aan sheegayba ka duwan oo Soomaalinimadu ku weyn tahay dowladnimadu ku weyn tahay oo dalkan samata bixin lahaa inuu yahay ayaan qabaa marka waxaan rabaa ila qaada waa ku kalsoonahay waana aaminsanahay walaalkeen annagana waa ku garab taaganna professor Cabdullaahi soo dhawow madaxweynaheena tahay maarta si kale ilaa baan ku dooranay sida aan kugu duceyn ilaah ku aqbalo amiin way ducdoon السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن نيو سلام يا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن يا مشرحني مدى إيو مارت حنكا إيو مارت قبكا كجرا ولالكي سلام الله مدحوين السودو بان لا ولبنا إساقو إيو بروفيسور كي صاحبكي أويس حلبانكا عبد الفتاح عبد الرزاق aad iyo aad baan idin soo salaamayaa dhalinyartan odayada oqaashan isoor fadhida hablahan quruxda badan leh ee makeup u baahnayn oo ilaahay ku dhashay quruxdooda oo la isku ekeysiinaya aad baan u salaamayaa haddii la iiga bartay inaan heeso imika waxa weeyaan inaan meesha sharciga Soomaaliya laga hago ama wax looga bedelo inaan ka mid noqdo si Soomaalinimada igu jirtay wadannimada igu jirta aan u muujiyo ayaan maartay xildhibaan qaranka ummadda Soomaaliyeed isku soo sharxay madaxweynaha haddaan taariikhdiisa dib u noqdo anagu isku reer Norway baan nahay inta waxa weeyaan intaana dhalan inta dhalinyarta oo dhan ku dhawaad dhowr iyo 20 sano 30 sano ayaan saaxiib nahay isnaqaanaa noloshayda intii u badnayd baan isnaqaanaa marka waxa weeyaan isagoona xil ama hadday noqoto Norway iyo hadday Ingiriiska noqoto aan ka hayn xil aan ka hayn buu Soomaali aw guntiga dhiisha iskaga dhigay marka waxa weeyaan inuu qarankana hogaamin karo waxa weeyaan waa la soo tijaabiyay Soomaaliyana waxay maraysaa qabkii ugu fiicnaa Soomaaliya way soo noqotay mugdi baan ku jirnay isqabsi baan ku jirnay maanta inta yar sidan waxa weeyaan damac baa ku jira kursigii kastiba 15 qof baa ku tartamaysa taas waxay ka turjumaysaa Soomaaliya inay tayo yeelatay oo inay tiro yeelatay oo mugdigii aan ka baxnay marka waxa weeyaan madaxweynaha waxaan leeyahay leydka shidmay iyo waaga bariyay inuu isaguna dhankiisa dabkii baxaya dab lagu darsadaa Soomaaliya hoos loo eegayay hoos looma eego Soomaaliya iyada hoos u eegta dadka iminka waxa weeyaan Afrika waxa weeyaan Soomaaliya qabkeegii inuu soo noqday nin cadaan oo ku tagrifayay ay dabada ka leedo tiri naga bax hawlaha iyaga ma geli kartid marka iminka ajnabi oo dhan fartay dhuunta ku hayaan Soomaaliya hadii waxay ahaan jirtay Soomaaliya qodbada Mareykanka waa la sugaa meel walba ay ka hadlayaan Carabta kuwa Carabta lagu sheego iyo Afrikada madowba waxa weeyaan dadkii
indhaha u ahaa Soomaaliya ahayd marka waan soo noqonnay kursigeedii muranka la gelin gaadhay ama adduunka ka baxay waan soo noqonnay anagoo qurux badan oo sanka taagayna ma garanaysaa marka waxaan in leeyahay Afrika kelmad yar baan u oranayaa waxaan leeyahay inay nabadu marinkii xoranimo jidka loo maraayo tiirkii midnimaadiyo noloshow macaantahay dowladaha horow maray sidaay u maalaan iyaga ka marag furi midiyaha coolaadee dagal laysku mariya maydkoon la kala garan dhulka ooma goomo madha soo baxayo laga waayo midhihii mehanowga gaajada afrikada madowwe isku meherad seegtiyo kuwa soo mara garan murtida iyo heesaha waxa loo maldahayaa maangarataadiine dalka kii ka maqaano naga maqal kuwa maanta joogo waad aragtay maansada madaxweynaha waxaan leeyahay guulayso waxaan uga soo duulay dalkaygii hooyo dalkaygii dhiiggayga ahaa ciidaydii hooyo aan uga imiday inaan garab joogsado walaalkay madaxweyne salaamullah soo dhow baan leeyahay salaamu calaykum بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان حنصور دوين يا مركورة مشارح مدحويني عبد الله محمد آدم وعنيقا أنا هاي نينا نقانو كرتديسة يوناجيسة إنو ما تسكو السوز تاقي إنو نقضو مدحوينها جمهورية الصومالية وحنلاقي هاي سودو وحنوض لهنا يا محمد آدم لو شاكي dadkii asxaabta ahaayeen iyo odayaashii intaba waxaa laga hayaa waagii maxamed siyaad baa xaafaduhu ku wareegi jiray degmooyinka gobolka banaadir dengane shangaani ayuu maalintiga marka waa la qudbeeyey nin kale baa loo dhiibay markaasuu wuxuu yidhi qudba haddee qaayo iyo qiimo ay leedahay xaaji qaamuusaa qaata marka qiimo iyo qaayo haddii leedahay oo yacni loo soo dhaweynta ahaa hore baa loo qaatay waxaan leenahay soo dhawaada aad iyo aad aan u baxaan waxaan badaynaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم marka hore waxaan leeyahay wariyaha qaaliga ee xasan cadde soo dhaweynta uu madaxweynaha cabdullaahi maxamed aadan uu ka soo qayb galay waa uu mahadcelinayaa intaas markaan ka gudbo waxaan soo dhaweynaa horta marka hore waxaan salaamayaa rag iyo dumar fadhiya halkan xafladda ka soo qayb galay cabdullaahi maxamed aadan salaamullah waxaan idin leeyahay waa mahadsantihiin intaas markaan ka gudbo odayaashii hadlay ayaan la qabaa soo dhaweynta anigana waxaan leeyahay cabdullaahi maxamed aadan codkayga iyo anoo codka dadka inta wakiilka ee waxaan ku leeyahay soo dhawaaw codkeenna soomaalida meeshaan fadhiso codkii ay ku siiyeen waxaana rajaynaynaa inaad noqotid soomaaliya dhibta haysato ninkii ka bixi lahay xaaladda soomaaliya hadda aad ayay u qasan tahay waxaan rajaynaynaa dowladaha diriska ah sida walaalaheen jabuuti kenya iyo etoobiya inaad noqotid dadkii xiriiri lahay diriska shareecadda islaamka waxay qabtaa xaq ay isku leeyihiin qofka gaal ha ahaado ama muslim ha ahaado dirisnimada in la ilaaliyo waa xaq waxaana rajaynaynaa inaad dirisnimadaas qofkii ka shaqayn lahay aad noqotid dhibaatada soomaaliya hadda haysatana ninkii ka bixi lahayna aad noqotid damaca waa fiican yahay qofka ibni aadanka inuu u fakiro brofesor cabdullaahi maxamed aadan waxaan ku leenahay fikirka aad fikirtay inaad soomaaliya adoo mutacallima jaamacaddii la foole ee waxbarashada macallinka soo ahayd inaad soomaaliya waxaan rajaynaynaa guushaas hadduu ku siiyo inaad maaragtay soomaaliya aad meel fiican gaarsiiso dhibaatada ay ku jirto maaragtay aad ka saartid soomaaliya xaalad badan ay soo martay
xaaladaha ay soo martay burburkii kadib dowladdii militarigaheed waxaa ka dambeeyey madaxweyneyaal fara badan rag adig kula mid ayaa damacan ku jira waxaan rajaynaynaa damacaasna inaad noqotid guushii ninkii ilaahay ugu siinay guushaas markaad ku guulaysatana waxaan rajaynaynaa soomaaliya dhibta ku jirta inaad ka saarto waad ogtahay meel kasta ayay daadsan tahay ama afrika ha noqoto ama yurub ama latin america ama america ha noqoto waxaan rajaynaynaa dadka inaad noqotid soomaaliya qofkii isu soo celi lahay soo aruuri lahay dhibta ay ku jirta ka bixiso xiriirka dowladaha diriska ninkii hagaaji lahay inuu ilaahay ka dhigo waxaana ku leeyahay guusha aad damacday ilaahay kugu guulaysiiyo haddaan nahay shacabkii kenya waxaan ku leenahay guushii aad damacday annaga xaggeenna waa ku siinay ragga xagga joogana hadda kolley waxaan rajaynaynaa xildhibaanada soomaaliya ee imaan doona waxaan rajaynaynaa inayna u xilanin waxyaalaha suuqa yaallo oo sida xoolaha la sheegaayo ay fiiriyaan ninka soomaaliga oo soomaaliya dhibta ka saarayo anigana waxaan ku leeyahay ilaahay ha kaa dhigo kuwii dhibta soomaaliya ay ku jirto ka saari lahay soo dhowaaw xilkaas aad damacdayna waxaan rajaynaynaa ragga aad la tartamaysid ninkii ka soo bixi laha ilaahay inuu kaa dhigo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu isugu yimid rag iyo dumar assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib adeer cabdullaahi maanta meeshaan wax kale uma aanan imaan waxaan u nimid soo dhowayntaada iyo waxay nala tahay inaan ku nidhaahno haddaan reer kenya nahay ee soomaalida kenya nahay soomaalida kenya kuma wada dhamma laakiin xafladdaa la soo gaabiyo intii gaadhay unbaa timid maantay maanee soomaali way badan tahay magaaladayna deggan tahay waxaad doonaysaa musharax madaxweynaha tahay annaga haddaan nahay reer kenya codkeennii waa ku sii siina jeebku kugu jira waxaan kuu sheegayaa dawladihii soomaaliya ka jiri jiray dawladda rigliya cabdullaahi ciise daaqiliyu ahaa dawladda rigliya waxaa u horreeyey aadan cadde 7 sano hayay waa la soo shaqeeyey waxaa ku xiga 2 sano cabdirasiide waa la soo shaqeeyey 22 sano maxameda waa la soo shaqeeysiyaad hadda maantay sida wax yihiin nama raalli gelinayso sida hadda maamulkuya nama raalli gelinayso haddaan nahay dowladaha dariska soomaaliya iyo shacabkaba waxaad mooddaa xoogaa in wax si yihiin baad mooddaa waxaan ku leenahay marka maandhow ee hankaaga allaha kuu sahlo waa han weyn waxaa jidhay maamaa soomaaliyeed oo ah dadaalaa waa gaaraa marka waxaan leenahay hankaaga allaha kuu sahlo wixii kuu qayra waxaan qayr ahayn kuuma aanan dirin waayo liisaan xalaalahannu ilaahay ku baryaynaa ilaahayna waana ajiibayaa waxa aan ka shaqaynaynaa mukar maaha ilaahay waana ajiibayaa waxaan ku leenahay marka maandhow kow soo dhowow arrinta aad damacday ee aad u tartamayso madaxweyne rag badan baa kaa horreeyo iyaguna qadka ku jira laakiin waxaan leenahay maandhow kii ku guulaysta allah kaa dhigo waxaan kaloo kuugu ducaynaynaa soomaaliya heerkay maanta joogto kii inta wax ka beddela sharafteeda iyo karaamadeeda soo celiya allah kaa dhigo sharafkii soomaaliya kii soo celiya allah kaa dhigo adduunka meel aan soomaali ku dhibaatoonayn ma jirto adduunyada waa ka warhaynaa iltuma ildimnundo meesha adduunka u dambaysa soomaali baa ku dayacan mana jiri jirin waxaasu waxaan leenahay marka midka inta soomaali isu ururiya oo soo dhoweeya oo wax u qabta allaha kaa dhigo dawladda hadda aan joogno ee walaalahayaa kenya waana soo dhoweeyeen guryahoodii bayna dejiyeen intifaacoodii ay wax naga siiyeen amaal booyin baan u haynaa kenya in la xumeeyana dooni mayno waxaan rabnaa walaalaha iyo waxay noo galeen
wax la mid oo wanaag inaan u samayno saasaanu rabnaa waxaan kaloo rabnaa caalamka xiriirkiisu inuu shaqeeyo inuu go'an yahay ma doonayno waa kula sii dardaarmaynaa weliba hadda anugu waxaan isleeyahay hadda anugu istaydi jeebkan kuu gelshay madaxweynenimadii cadkaan ku lahaa haddaan jeebka kuu gelshay marka waxaan rabaa xiriirka caalamiga ah ee adduunku nagala dhexeeyo maandhow inaad toosiso marka ilaahay gacantaada soo gelsho haddii ilaahay mawdka noo aakhiro waxaan leeyahay haddii ilaah yidhaahdo annagu soomaaliya hadda galabta ma joogno laakiin haddaan noo yeerato tira noo imaada waan kuu imaanaynaa waxaan kula qaban karna waa kula qabanaynaa laakiin hadda kenyaan baan nahay halkaanaan deggannahay waddanaan jecellahaan joognaa walaalaha iyo kenyaan la nool nahay waa aad iyo aad bay noo sharfeen annaguna waxaan leenahay kenya ha noolaato soomaaliya ha noolaato east africa ha noolaato ummadaha ku nooli amaandhow soo dhowow inaan sii wado waa rabay laakiin rag badan baa isugaya cabdullaahi welcome baan ku leeyahay welcome munaasabadda musharaxa madaxweyne ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya cabdullaahi maxamed aadan salaamullaahi sacabku xaggiinna weeye soo dhoweyntu xaggeenna weeye soo dhowow mudane madaxweyne ku soo dhowow mikrofonka asalaamu calaykum waraxmatullaahi barakaatu walaalayaal mudanayaal iyo marwooyin dhammaan marti sharafta qiimaha badan oo munaasabaddan quruxda badan ka soo qayb gashay ujeedkeedana uu ahaa inay nagu soo dhoweeyaan magaaladan nairobi caasimadda dalka kenya walaalayaal marka hore waxaan idinku salaamaa mar kale asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu salaan kadib warka hordhiciisa horaa loo sheegay ujeedka aan laheennay oon halkan u joogno runtii profesor aweys oo dhinaca midigta iga taagan waa raggii macallimiintii jaamacadda ummadda aan isla soo shaqaynay runtii waa ku mahadsan yahay khudbadiisii qiimaha badnayd walaalkay farxaan xidig oo aad wada garanaysaana runtii waa ka hadlay wixii annagu aan nahay qofka aan nahay kulli waxaas oo dhan cabdifitaax oo jaaliyadda UK igala soo shaqeeyey waa garanayaa isagana wixii aan soo marnay howl ah doctor cabdiqaadir colow oo isna nooga yimid waddanka australia munaasabaddan inuu ka soo qayb galo darteed waa ku mahadsan yahay suu sheegay ninka la yidhaahdo farxaan xidig munaasabaddan inuu goobjoog u ahdo xamar ugu yimid sidoo kale barnaamijka ninka xiriirinaya oo ad arkaysaan oo la yaqaano wariyaha caanka xasan cadde wuxuu isagana ugu yimid xamar inuu munaasabaddan xiriiriyo oo goobjoog ka ahaado aad bay saaxiibaday u mahadsan yihiin dhammaantood guud ahaan khudbadihii iga horreeyey oo ay odayaasha dhaqanka ay ka hadleen nuxurka waan ku mahadinaynaa runtii munaasabaddan waxay ku aadanayd munaasabad dhallinyarada ay iskoodii isu xilqaadeen dhallinyarada magaaladan london magaalada nairobi ku nool khaasatan islii ee ku nool ayaa mataqaanaa oo guddoomiyaheeda uu joogo gudoomiye khaliif uu ugu horeeyo iyo walaalkeen cabdiqaadir buush oo xildhibaankeenna ah kolley aan rajaynayno mustaqbalka xildhibaanada cusub oo dalkan u soo bixi doona inuu qayb ka yahay siyaasi oo reer maraykan ahaa oo isagana abaabulkeeda hoggaanka ahaa dhammaan guddigii hawshan ka howlgalay oo gabdhi iyo wiilal bale aadaan ugu mahadinayaa runtii sida quruxda badan oo isu xilqaameen walaalayaal waa idinkaga mahadinayaa wakhtiga dheeraa oo dulqaadka samayseen iyo runtii sida aad maaragtay ugu dhabar adeegteen soo dhoweynteenna iyo wakhtiga qaaliga ood noo soo hurteen aadaan idinkaga mahadinayaa garab istaaggiina mar walba leh min maalinka airboortka aan ka soo degnay ilaa maanta intuu dhexaysa sidaa noo garab taagnaydeen aadaan idinkaga mahadinayaa qof kasta oo ka qayb ahaa soo dhoweynteennana runtii waxaan ilaahay ugu baryaynaa runtii in ilaahay isagana darajo ziyaada uu ku siiyo halkaas walaalayaal ujeedkan usoo gudagalo nuxurka waxaa weeye anigoo runtii aanan iloobin bahda saxaafadda runtii aan rajaynayo runtii munaasabadan kafargaraynaya dhowr TV oo halkan iiga muuqato 5-6 TV waxaan rajaynayaa TV kastaba qolo kasta oo halkan kafargaraynaysa munaasabadan inay sida ay tahay ay ugu qayb qaataan Soomaalinimada iyo midnimadu waxa waa hadafka la leeyahay iyo ujeedka qofka uu soo bandhigayo in qof walba uu qaybtiisa ka qaato oo muhiimadeeda siiyo marka waan rajaynayaa runtii bahda saxaafaddu inay muhiimadooda qaadan doonaan ay qaybta ay ku leeyihiin walaalayaal anigu sida horeyba saaxiibaday u sheegeen waxaan ahaa ninka Soomaaliya ka yimid Soomaaliya madax ka noqday agaasimiyaal iyo matqana xisbiye iyo hadii ilaahay ku ron yahay gudoomiye xisbi iyo
gudoomiye ku-xigeenka xisbiga cadaaladda iyo midnimada tiir oo hadda aan ahay oo aan runtii muddo ku soo shaqaynayay gudoomiyihii qurba joogta dalku ku soo noqotay aan ahaa gudoomiyihii jaaliyadda ingiriiska aan ahaa agaasimihii kuliyadda waxbarashada la foola aan ahaa jaamacadda ummadda agaasimihii waaxda farsamada jaamacadda ummadda soomaaliyeed aan ahaa meelo badan jaaliyadda norway dadkii isu keenay aan ka mid ahaa runtii meelo badan oo soomaalinimada laga rabay inaan ka muujiyo dadaalkayga iyo kartidayda iyo hadafka aan ka lahaa waa soo maray runtii waana ka soo gudbay iskuma ammaanaye saaxiibaday baa hore u sheegay iyo inta maqan oo sheegi doonta walaalayaal markaan ogaaday inay ku habboon tahay taariikhdan casriga ee maanta aan marayno da'dayda iyo waayo aragnimadeeda iyo aqoontayda iyo dadaalka ummadda soomaaliyeed aan geliyey waxaa ii soo baxday inaanan ka baaqsanin aan ku habboonahay qayb ka noqon karo inaan noqdo musharax madaxweyne ee dalka soomaaliya taasoo ah mid ummadda soomaaliyeed ay u siman tahay qabiilna ayna gooni u lahayn qolana ayna gooni u sheegan karin balse qof kastoo muwaadin oo soomaaliya oo adinka xataa idinka mid ah maalinkaad u bislaataan inaad mas-uuliyaddaa qaadi kartaan ummadda soomaaliya mas-uuliyadda aad u qaadi kartaan inaad soo sharaxi karto khaasatan dhallinyaradan la hadlayaa walaalayaal taasaa keentay inaan soo sharaxo gudaha soomaaliyana aan ka soo cadeeyey magaalada muqdisho aan isaga soo sharaxay halkana jaaliyadda ayaan ku nool dalka kenya inaan la wadaago hadafkayga iyo hamiga aan leeyahay ayaa iyadana qayb ka ahayd waan idiin mahadinayaa waan aaminsanahay runtii dalkeenna waa dal barwaaqo ah dadkeennana waa dad soomaalinimada iyo midnimadaba ku wanaagsan waxay u baahan yihiin hoggaan fiican oo cadaalad u sameeya amnigana ka qayb qaata oo qayb libaax ka qaata ama amnigana suga soomaaliya maanta waxay u baahan tahay laba arrimood wax kale uma baahna dhaqaalo ku filan waa haysataa bad iyo berri bay leedahay xool ay leedahay waa waddan barwaaqo ah macdinta iyo nooc walba badroolka iyo macdinta iyo wax walba ay buuxaan waa waddan qani ah oo caalamka oo dhan laga og yahay waa waddanka keliya oo maanta caalamka oo dhan marka la qiimeeyo waa waddan keliya oo dadka caalamka indhaha ay ku hayaan loo arko waa barwaaqada dahan inay Soomaaliya tahay laakiin waxay u baahan tahay Soomaaliya maanta amni iyo cadaalad wax kale uma baahna amni iyo cadaalad haday hesho ummadda Soomaaliyeed maanta way isku filan tahay waxaad arkaysaan jaaliyadan maanta ku nool halkan waddanka Kenya magaalada Nairobi siday ugu qayb qaateen horumarka noloshooda ama waddanka siday qayb ugu yihiin oo ugu muuqdaan dhaqaale ahaan iyo aqoon ahaanba runtii siday ay ugu karaamaysan yihiin oo ugu horumareen ayaad ka garanaysaan marka dadka Soomaaliyeed maanta gudaha ku nool waxay diyaar u yihiin inay helaan inay ka qayb qaataan dhisidda dalka balse waxay doonayaan inay helaan hoggaan fiican oo caadil ah oo amnigoodana suga dadka nabadiidka ah oo waddanka maanta ku dambeeya ee jooga waddanka Soomaaliya ayaan runtii caqabada kaliya ee jiri karta laakiin wax kale oo dhibaato oo jira haba yaraatee lama arko waxaan rajaynayaa haddii ilaahay idmo kulley khudbadda aan jeedin doono maalinka masharaxnimada aan u soo istaagi doono oo ay imaan doonto aan 2 bilood ugu badnaan gudahood imaan doonta waxaan rajaynayaa inaan soo bandhigi doono hadafkayga iyo mataqaanaa tiirarka aan ka duuli doono haddii ilaahay idmo oo aan soo bandhigi doono ummadda Soomaaliyeed aan la wadaagi doono haddii ilaahay idmo balse hadda waa hordhac waxaan idiin sheegaa oo kaliya inaan musharax madaxweyne dalka Soomaaliya musharax u ah doonayo ummadda Soomaaliyeed inuu samata bixiyo waxa ugu horeeya oo hamigiisa koobaad u yahayna ay tahay amni iyo cadaalad waa amni iyo cadaalad inta kale ummadda Soomaaliyeed baa haysata waa barwaaqo dalkeenna saasaan doonayaa insha Allah kulan dambe kulmi doonaa waxaan aad iyo aad idinkaga mahadinayaa waqtigiina qaaliga runtii ma aha waqti saalan waqti aad ii horteen iyo runtii dadaalka runtii qulubta ka turjumaya oo runtii aan u arko in maanta haddii ay adinku codka aad bixin lahaydeen inaad toos adinku codka ii siin lahaydeen runtii gabdhaha quruxda badan oo ku labisan dhammaantood calanka Soomaaliyeed waa u jeedaan runtii quruxda aan leenahay marka calankeena aan ma garanaysaa marka calankeena aan qiimeynayno waad arkaysaan sidaan ugu qurux badannahay wiil iyo gabarba marka calanka lagu labiso calankeena quruxda wiilayo waad aragtaan caalamkan waa ka dhex muuqdaa waa xidigtaas cad iyo buluugaas oo cirka ah meesha laga soo waray ma aha ama laga soo qaaday meel sahlan ma aha walaalayaal aad baad u mahadsantihiin boqolkiiba boqol baan idiin mahadinayaa runtii ma raba inay qiirada ila sii dheeraato boqolkiiba boqol baad mahadsantihiin insha Allah waa guulaysan doonaa biidin Ilaahi alkariim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh